sida aad ognahay qof waliba oo meel cusub taga noloshiisa wuxuu la kulmaa caqabado ama waxyaabo asiga ka yaabiya maanta dad for example dad gurigiina aanan ahayn haddaad tagtid wax cusub aad la kulmaysaa taasina sidaan hore usoo sheegnay ama broadcast-geena waxa uu quseeyey waa inay ku bedelaan wixii ku qabsaday oo shay wanaagsan maanta ama arrin wanaagsan ay kugu dhacdo arrinkaasi waa inuu wanaagii uu hore kugu sii wadaa haddaba arrin xun oo ku qabsadane waa inaa isbedel aad ka keentid labada marbo barnaamijkeena higsigiisu waxaa waaye inaan isbedelka lagama maarmaan u yahay bini aadankana waxaa bedelo xaaladda markaasi uu galo ama waxay siisaa decision qaldan oo xun fahamtay ama decision wanaagsan oo noloshiisa ku hormari karo ama mid uu noloshiisa dib ugu dhigi karo badanaana decisionada qaldan oo noloshaada dib u celinayo waxay ka yimaadeen shaydaan iyo wehsiga naftaada taasi markaa ka soo tagno waxaa jirta qiso aad iyo aad cajiib u ah yar aan saaxiibo aan ahnay ila wadaagay yarka saaxiibada aan ahnay waa yar saaxiibo aad iyo aad iskugu dheer aan ahnay sane loo yaqaano saaxiibada nafta marka ninkaasi saaxiibkayga waxaa jirtay beri uu tagay dalka Mareykanka markuu uu tagay baa xaaladda Mareykanka sida aad taqaanid markaa tagtid waa lagu geynayaa iskuulaadkii meelihii meelo badan inuu dadkii different culture ay qabaan waa la kala duwan yahay even Soomaalida meesha joogto waxay leeyihiin dhaqamo ay meeshaasi ay ka qaadeen faantay sida inay af Soomaaliga uu yara gaaban yahay in maxaa la dhahaa isfahankii qofkii markaad la hadashid Soomaaliga aad kula hadashid aad tiraahdid war ii waran oo ku yiraahdo oh I'm fine I'm okay inuu ku yiraahdo hatta oo I am fine oo sida Ingiriisiga caadiga ah oo aan ku naqaanay barashada nagula barayo inuu qofkii ku kula hadleen fine iskaliya waxaa leedahay accent-ka kala bedelan dhaqankii wixii oo dhan marka qisada saaxiibkayga waxay tahay berigii Mareykanka la geeyay baa wuxuu ka bilaabay high schoolka markii la geeyay buu yar shakligiisa Soomaali ahaa Soomaalinimada waxay kala tahay maxaa la dhahaa qof aad ka aragtid Soomaalinimada iyo qof totally bedelmay marka yar baa jiray sidoo qisada ila wadaagay yar baa jiray oo Soomaalinimadii oo gudaha inay ka tahay uu ka dareemay maadaama uusan luqadii accent-keedii iyo wixeedii iyo culturalkii iyo wixii oo meesha ay ku cusub yihiin asiga wuxuu dhahay waxaan la qabsaday yarkaani baan waxaan go'aansaday inaan la saaxiibo yarkana waa yar muddo in badan asigoo yar wadanka la keenay meel hoose ka yimid ilaahay kuma daraadee yarkii markuu la qabsaday oo la saaxiibay wuxuu yiri yarkii Soomaaligan kula hadlaa wuu ifahmayaa laakiin waxaan aniga fahmayno igu jawaabaa si fiican markuu arkay inuu wuxuu dhahay markaan arkay inuu igu jawaabayo maxaa la dhahaa waxaan waan fahmayaa laakiin ninkii waxaan dareemay oo dhahay inuu iskala ka weynaysiinayo wuxuu dareemay inuu i dareensiyo ilaahay kuma daraada inaanan luqadda aqoonin iyo waxyaabo la mid ah wayl af Soomaali markaa kula hadlo kan igu jawaabayo yarkii waxbaan weydiinayaa xaaladii way adkaatay anigana saaxiib baan ka dhiganayaa asigana saaxiib uma ihi kaasoo wuxuu dhahay waan fikiray oo dhahay waan ciishooday horta intuusan fikirin ka hor wuu ciishooday ninka raggaani sempre waa sidaan sheegnay qisada ciilka ninka ragga wuxuu siiyaa go'aan saxan ama mid qaldan صح ilaahay kuma daraaday markuu sidii ahaa wuxuu dhahay waan fikiray war wadankan ma aniga oo kaliya soo galooti ah waa may meeqa qofood aqooti ah inda yar badan Afrikaan Ghanes Afrikaanada noocyadooda kala duwan Asianka noocyadiisa kala duwan inda yar ha aado Chinese ha aado Hindi ha aado wuxuu doona ha aado faantay Arabta wuxuu yiri markay saas ahayd waxaan go'aansaday oo dhahay nin aad iyo aad u caqli badan oo ahaaye wuxuu dhahay
marba waxaan isiriyo yiri imaad dhahdaaniyahu iga caawi waxaani accentkan iyo waxaan saaxiib oo ku dhibanahay tan waan fikrayo dheh ilaa waxaan isdhahayo dheh maanta dad qofkaani maanta aad u sheegteen meesha inaad ka liidatid bari weakness-ka uu isticmaalaya yes si fiican wuu ku adeegsanaa because of haddii aad saxantid xataa wuxuu ku leeyahay shalay ninkii saas ahayaata hebel shalay ma aadan ka siinin adiga shalay ma aadan ahayn sidaasi yes ilaahay kuma daray waan fikrayo dheh war ma sidaanaad yeeshaa ninkan macaawinaadaad weydiisataa maxaad samaysaa markaasaa wuxuu dhahay ilaahay baa fikri ugu soo ridayo dheh fikrada ilaah baa bixiyo waxaan isdhahayo dhahay kaligaasoo galooti ma tihid carab baa joogto dad badan baa joogaan oo kula mid ah same iskuolkana kula dhigtaan wuxuu yiri waxaan dareemayo dheh baahida aniga aan qabo kaleeto in ay qabaan dad qaba inay jiraan ama in ay qabaan soo galootiga aniga ila mid ah fahamtay waxaa jiro yiri iskuulka carabtii eeshiyaankii hindidii indha yarka ahay dadkii baan groupkoodan galay oo dhahay groupkoodii aan isku inform garay oo dhahay aan ku biiray groupkii markuu ku biiray baa wuxuu yiri dadkii haddaad wax giftid luuqadii si qaldan ugu dhawaaqdid haddaad wixii aadan fahmin waa lagala siman yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo lagu laqabo baas ma lahano ninkii calaayata xaal iskuulkii wuxuu dhahay inaan la qabsadaan bilaaba maadaama dad aan anigu ugu roonahay ama inaan anigu ugu roonahay aan dhihi karo abi la joogaan u dhahay oo dhawaaqooda iyo waxooda iyo xataa aad qaar age kale dugsiga sare ku joogaanba high schoolka calaayata xaal say baashi u socotay waan isbedelay u dhahay waan la qabsaday waxaan bilaabay yiri inaan dukaankii kaligii wax ka gato macallimiintii waxaan bilaabay oo dhahay inaan ula tagi karo maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka aan ka qabo cashirada waxaan wuxuu yiri ninka waxaan isla dhigi jirnay oo dhahay galaaska mathka algebraiga isla dhigi jirnay wuxuu yiri koodor algebraiga markii la sharaxayo sharaxaadeeda ina macallinkii accentkiisa aan fahmo ayaa aad iyo aad igu adkeed heer maalintii dambe wuxuu arkay galaaskiino anoo macallinkii la qabsaday macallinkii la wada bahasha oo galaaskii oo dhan aniga ay soo eegayaan ninkii shalay iga tagay meesha wadada cidlada igaga tagay oo dhiiga iyo Soomaalinimada aan u doorbiday ayaa meel cidlaa ayuu igaga dhaqaaqay wuxuu igaga dhaqaaqay weaknesskayga waxay inaan meeshaas ku liito aanan aqoonin sidaas aan ahay markii aan doorbidayna dadkii aan isla soo galootay asiga la soo galootay laakiin dadkii aan isku timeka aan ku imaanay isku periodka aan ahayn dadkaasi maadaama ay aan ku biiray oo dadkii aan soo hana qaaday oo xataa asigii aan uga sii wanaagsanaaday maxaa la yiraahdaa because waxaan ahay nin ciil arkay ma fahantay heer waxaa jirtay aan dhihi jiray niyo macalinka waxa uu sharaxay ma ii sheegtid oo wuxuu dhihi jiray asigoo i dhibsanayo hal eray af Soomaali xataa inuu igu jawaabo sidii macalinka uu yiri marka qaar ugu celiyo ama macalinka muxuu waxaas ka wadaa sidaas oo ka wadaa himida away inuu yiraahdo so على يتحال نكي دبان وصاحبنا up to now ذاني شكداسي ما أنا أشيكين نكي شال صاحبتنا مديسة أن راديناي أو إنه وتصحن يورد أن راديناي أيا إيجا قوستي مركان أنا قد دب إسكو أنفعينا ودب أن إسكو تري ودب دال أن إسكو قلينا أساد دب إلى صاحبه صاحبتنا مديسة دب أسور هذه مركان مورال كستوريجا أيا وحو يهي bini aadanka maalintaad u baahatid oo baahi ay ku qabato maalinkaasi lagama yaabo inay ku caawiyaan maalinkaasi inaad caawinaad ama garab aad ka heshid oo habeenkii xala tagay laakiin qofka bini aadanka maalinkuu dareemo inaad la barbar tahay ama aad la siman tahay ma fahantay ama inaad ka yara horeyso ama aad ka yara hormaraysid wuxuu isku dayayaa inuu kula saaxibo inuu kula saaxibo way oo kula saaxibayo mataqana wuxuu diidayaa ninkii shalay ka dambeeyay maadaama aad tahay inaad ka hormartid ma fahantay mid kale way oo kula saaxibayo mataqana inaad tahay nin isbedel doonaya ama isbedel degdeg ku isbedelayo waxaa jirta qiso cajiiba oo kaleeto oo just moral stories kala isticmaalo wallahi markuu ninka saaxiibkayga stories iga shakeeyay qisadaas aan soo xasuustay inkastoo asiga aan u sheegin ana la wadaagin waxaa jiro light fly waxaan ay dhahaan
tisxigan oo ifayo marka tisxigan oo nal kale tisxig waxa jira mugtay iftiimo ayaa jiro tisxigi baa asigoo meel ku taagan caleen buu ku kor istaagay maskan masbaa u yimid kobra la yiraahdo maskan kobra afka u kala qaaday markuu inuu ku dhufto oo doonayo baa tisxigi baa wuxuu ku yiri nihow intaadan horta waaba gacantaada waaba ku jiraahe intaadan adiga aadan wax yeelaynin saddex su'aal aan ku weydiinaya yaa la weydiinaya maski tisxigi oo ifaya baa weydiinaya sida loo yaqaano maxaa la yiraahdaa light flyga ilaahay kuma daraaday wuxuu yiri warniyahow masow aan ku weydiiyo kabrow aniga ma miilkaagan ka mid ahay cunada aad adiga aad jeceshahay aad cuntid ma ka mid ahay maya ayuu yiri kama mid jeed okay ma wax aan ku geystay ayaa jiro dhibaato oo aad inaad ii cuntid aad rabtid oo aad ii dishid miyaa jirto maya ayuu yiri markaasuu wuxuu yiri haddii wax dhibaato aan ku geystay aysan jirin cunadaadana aanan ka mid ahayn way aad ii dilaysaa adduunka aad ii dhaafinaysaa ama asaagayga aad iiga reebaysaa wuxuu ku jawaab taqaanaa iftiinkaaga ayaa i dhibaayo ayaa i dhibaayo the more aad iftid the more reflectionkaaga oo dadka kale u dhibaayo حتى قف آذن اسكو ميل آذن أحين أما آذن اسكو درجة أحين أيو لبي دونا مثلا لايت كاغا أديك افتينك كوبا حاية وحو لبي دونا نين آذن اسكو درجة آذن أحين أما آذن اسكو ميل آذن أحين أما آذن اسكو لوقات آذن أحين واي أو لبايا هرم افتين كاغا آد إفيس وهرمر كاغا مركا نيكان ساحب كيغا مركو سوكعي نيكي دبو ولا سو صاحبه شلع عاونادي سو باهناي نعم oo diiday maanta uma baahno uu ka maarmaa uu ku soo xirtay ma fahantay yes marka bini aadanka the more aad iftid oo naftaada aad dhistid ma fahantay oo awood aad u yeelatid in adiga isdhistid aad controlshid oo aad ka maarantid the more aad agtooda value ka yeelanaysid the more agtooda aad wax ka noqonaysid ma fahantay marka ninkan saaxiibkayga storydiisa waa story sam maxaa la yiraahdaa light flyga oo kaleeto marka maashi aad ku dareentid guilty ama dhibaato waxaad isku daydaan inaad bedelatid bedelashada aad bedelanaysidna aysan noqonin bedelasho daciif ahoo ha noqoto bedelasho beri lagaaga soo baahanayo how sidee beri ani laygu baahan karaa mada kaleeto meesha aad ku bedelanaysid iyo meesha aad ka bedelanaysid meesha aad u bedelanaysid waa inay noqoto meel aad value ku leedahay maxaa yeelay meel aad ku value aadan ku leeyahay qiimo aadan ku leeyahay maadaama aad ka soo bedelanaysid waa inaad u bedelatid meel aad qiimo ku leedahay meel aad ka muuqan kartid yes ma fahantay meel aad saameyn ku leedahay ka muuqan kartid waayo shaygaas ifaayaba maska cunadiisa maan ma dharjiyo ma kaafiyo waxbana ma uusan u dhibin laakiin iftiinkiisa dhiboy ma fahantay so dad badan baa jiro oo iftiinkaaga u dhibaayo ma fahantay taasina waa waxyaabo caadi ah waadaxo ilaahay uu dadka ku uumay ma fahantay waxyaabaha la isku imtixaamayo ayay ka mid tahay waxa adiga aan kaaga roonay inaan ku sheegin cadawtinimo ma ahane waa waxyaabo ilaahay uu nagu imtixaamayo ma fahantay ninka walaalkiisa wuu awooday inuu luqada kula hadlo oo maadaama asiga uu walaashanayo laakiin wuxuu ka fiirinayay inaysan isku value ahayn maxaa yeelay ninkan shalay ayuu soo galay laakiin aniga qiimaan everything waan fahmaya aniga waan la socon karaa nolosha ma fahantay so marka dadka storyalkaas kale ay ku dhacaan macnaheedu ma ahan inaad isdhiibtid inaad isdhiibtid ninkaas isxaan buu ku sabay isbedel buu ku yiri isbedel marka adina waa inaad isbedeshid dadku waxay ku sheegaan mar walba marka runta sida maska oo ugu sheegay saxsigaas ifaayo inuu iftiinkiisa uu dhibaayo sidoo ugu sheegay ay dadka runta kugu sheegaan sidee runta kugu sheegayaan way ka goosanayaan waji kale ku tusaayaan ma fahantay inay ka sareeyaan ku tusaayaan afka kaaga ma sheegayaan waa laakiin maska uu u sheegay laakiin ayaga way ku tusaayaan ficil lagu tusaaya yes ficil fahant saaxib si fiican marka hadda qisadan waxaan ka fahmay qof walba inuu asi horumar isgaarsiin karo si fiican aad iyo qof walba inuu asi isku tiirsanaado aad iyo aad qof walba meesha value-giisa waa meesha oo
valuegiisa ka fiican yahay inuu aado meeshu ka muuqdo wax tarka leeyahay ku wanaagsan yahay inuu aado qof walbana wuxuu la koraa awoodiisa ma fahanti markaad yar tahay carruurta asagaaga baad ku awood tahay ma fahanti ayaad la ciyaari kartaa ma fahanti noloshana waa sidaasoo kale day basicgeeda uu yahay meeshii adiga aad tahay waa inaad meeshaas joogtid classkaas unbaad ka soo sara kici kartaa kor uga soo kici kartaa laakiin mid kaa sarreeya haddaad tagtid inaad soo dhacday oo badan tahay because of maadan soo korin wadadii saxda ahayd adoo class 5 class 6 imtixaankiisa ma geli kartid adigu dugsiga sare dhiganayo jaamacadda masterkeeda ma diyaarin kartid horteeda ka tahay so marka everything dunidani waxay leeyihiin meelo loo maro fahantay marka qisadaasina waa qiso aad iyo aad cajiib ah waana true story saaxiibkayga qaaligaana ila soo wadaagay waana xaaladaasiga ku dhacday qof walba true story lahne waan jeclaan lahayn storyadiisa inaan bulshada u gudbino oo aan nala soo wadaago si aan bulshada u gaarsiino bulshada Soomaaliyeed qisadaadana waa muhiim marka qisadan waxa ka fahantay commentiga inoogu reeb aad iyo aad waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.